guursatid waayo waxaa soo dhow Ramadaan. maya xabiibtii ma doonayo in aan kala kula guursado waayo waxaa laga yaabaa inaan murtaan oo khilaaf idin dhaxmaro. maya xabiibi sidaas ma dhacayso waan ku jeclaa aydan waan soo dhaweynaya. okay xabiibi xabiibtii waan qaatay taladaadii waa taa saacaga ay jiiftaa wayna daalan tahay biri ayaan ku barayaa haddana shaqo siyaadi yaa ka oosiye xabiibti naagta keenta ayaa saakay ilaa hadda caay afxumo iga dawato adiga madaxaaga ku dhaafa maana bur ibiya loo kala bixi lahay ma adiga kugu bilawday isla maanta gudeeda hadii aan garaacin waa ku bariyaa walaalow hay eedeenin maxaa yeelay way dhib badan tahay in naag kale lagu kibirku gabariyay ma fiicna hadaad baylihisay reerka afar baa lay baneeyay aroortan sooba guursan iswaal baa deysan weydee adoo wata reerihiina waraaqdaadii u kaalay wallaahi saakay jarmaaday anaa weelkii xalaaya ileen liifii ma yaalo taydhii waa sii gabaabsi majin baa reerka jooga ayaa wax ku cunayso xuuntan aabbooyaa musawaryaada anuu ma cuntaan aqaana ilmadaniga da'aysa eega basashayga sii daraysa marwadidu dayay walaalo allow may ahaata saacad aqalku kaa maarmi maayo anoon gardarrada lahaani anaa eedoo dhan qaaday anaa naca soo maraana adoonani ii naxayni awlaaddaadii u kaalay ma ka weyn tahay 20 ama ugu yaraan 18 sano ma doonaysaa shaqo mushaarkeedu ka badan yahay $1 oo gelin kaliya ah ma joogtaa Soomaaliya ama wadan ka mid ah wadamada bariga Afrika ma doonaysaa in toddobaadkii 3 cisho shaqayso diyaar ma u tahay shaqo leh hal dalxiis oo daafaha dunida sanadkiiba hal bil ma doonaysaa dhacdhac maalin kasta hesho ugu yaraan $150 ma doonaysaa gaari bilaash ah oo lagu siiyo xilliga shaqada haday jawaabtaadu tahay ha Allah ku sahlo